وفلان أسمينيا ورباب جيو جاهل باتاي ورمقدش ريسكي كجرا ورموبيلدي اللي يسكد لي midda koowaad haddii caaqil qofka uu yahay oo sheekh dhammaystiran uu yahay sida aan ka aragnay culamadeena oo ugu horeeyay sheekh Mustafa qofkiina aad u imaado aad dhahda awalan walaalow waad qaldan tahay waxaad ku socotid xumaan waa ilaahay raali kama aha ummadana raali kama ahan ha fasahadinin ummadda salaanka sokow waxaan ku leeyahay deegaanka maxamed daawanaysa de subscribe ka saarday baa subscribe السلام عليكم أصحابته ولا Soomaalida meel ka soo joogtaan iyo soo dhawaad noo dhageysanaysaan waa walaalka Arax Media oo aad daawanayso waxa sharaf cizi iyo wanaag in aad daawanayso waa walaalkii Soomaaliyeed waxa ugu horeeyo aan ka raawo waxay tahay inaad calaamada gaduudan ee subscribe ku qoran tahay SUBC ee ku qoran tahay ee gaduudan cadaan ka dhigo gambaleelkana ma aragtay furo si aad u noqoto qofka ugu horeeyo oo soo dhaco markaan video ama clip soo deyno kadibna like tasaaro inta markaa sameeysid koob shaaxa qaadanaysaa waa fariisanaysaa waa isdejinaysaa andan barnaamijka warka aan idin soo wado si aad nuxurkiisa u noogtid haddii ka mid tahay asxaabtii kalena de boqolkiiba 14 baa mar walba aan ku يانكو مدعيلك اوكي anyway ساكو aragteen title-ka kore kab naga weyn kab iga weyn aan rabaa xawlan gashto asxaabi laakiin igu qaata ugu jeeda hada background-kayga maybe waxa iskayde YouTuber yar oo soo kacayaan hay oo ila madarnaade upcoming YouTuber you know that marka de waxyaabaha dhan igu qaata background-ka igu qaata waa la bedeli doonaa marka la igu qaata de Soomaalnimo ay jirto inta ka dhimanna de adaa laga rabaa inaan bedesho anyway Baba J iyo sheekh ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya baa arin soo kala dhaxgashay aniga horta arimahaas oo ilaahay kuma darnaada serious ka ah kaba iga waaweyn waay ma gashto waa ka cabsada laakiin maadaama ay tahay social trading news way now waa inaan ka hadalno sheekh la yiraahdo sheekh Xasan la dhahan jeclaa sheekh magaciisa ma xasuusto laakiin waa sheekh Muqdisho joogo ayaamahan maalmihii ugu dambeysay waliba shalay bay ahayd ma jeclahay baa wuxuu ka hadlay Baba J oo ku tilmaamay inuu yahay ilaahay kuma darnaaday dhowr arrin uu ka sheegay in xaaskiisa uu keenay bulshada dhexdeeda uu ku shumiyay uu hadiyad ku siiyay wuxuu sheegay ilaahay kuma darnaaday waxyaabo badan oo sheegay Baba J-na waa ka soo jawaabay marka sheekha qeer Allah siiyay sidaan ayuu warkiisa geesanna bal sheekha argumentigiisa وفلان أسمينيا ورباب جيو جاهل باتاي ورمقدش ريسكي كجرا ورموبيلدي اللي يسكد ليا ورهداد حاسكاغا دهب ربطه inaad siisanay wala dhuumo ana runta ku sheegay wallahi muqdisho diba ka jira maanta ninka inta uu madx soo hor istaajiye xaaskiisa yiraahdo dahab baan siinaya waa nin ka dhacsan waa nin waalan waa nin jaahil ah waa nin waxa muqdisho ka jira aan war u haynin horta markii runta laga hadlo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya sida uu sheekh qeer Allah siiyay uu sheegay waa magaalo qatarteedu ay badan tahay cadawgeedu iska badan yahay qofka $1 lagu dilo wax dhibaato yaani diiwaan garan karnaa qof walba oo Soomaaliya jooga adduunka maqan yahay kalaba Muqdisho xaaladeeda cid aan ogsanayn malahan marka sheekha arinta uu ka hadlay yaani warwar maxaa la yiri xaaskaada eelkaada qaraabadaada waxaad siisanayso gurigaada ku siiso ee Muqdisho waa halis waa bahar isku galinin hadal xun maaha waa hadal saxab boqolkiiba boqol hadal laga soo celinayo maaha hadalkaasna waxay u qaadan karaa Baba J laga rabaa inuu qaato inay tahay waano dhaxalgal ah oo asaga ilaa kuma darnaaday u fiican isla inuu u qaadanin personal attack horta personal attack buu ku jira sheekha markuu isticmaalayay erayada jaahil oo kale xogaa waa laga qurxan yahay qofka marka tahay qof culimo ah oo ilaa kuma darnaaday role model oo bulshada adiga ku fiirsanayso in erayada macnaha personal target oo kale waa laga qurxan yahay laakiin waan ka hadli doonaa kulli views-kayga waa dhiiban doonaa oo aniga fikirkayga aan dhageysano waxa ka hadlay marka Baba J asagana uu soo jawaabay arrintii uuna ka carooday uuna ka xumaaday
marka bal videogiisa ugu dheeraa laakiin waxaan soo qaaday clip yar oo adiga inta ugu muhiimka ah uu ka hadlayo aan daawano. midda koowaad haddii caaqil qofka uu yahay shiiq dhammaystiran uu yahay sida aan ka aragnay culammadeenna oo ugu horeeya sheekh mustafa qofkiina aad u imaado aad dhahda awalan walaalow waad qaldan tahay waxaad ku socotid xumaan waa ilaahay raali kama aha ummadana raali kama ahan ha fasahadinin ummadda waaba haddii qofka qalad lagu haayo walaalow iska dhaaf si hoosaad ugu sheegaysaa qofka waa uu ka qaadan waaye waxa ku furan wadda labaad eheloo leeyahay qaraaboo leeyahay toloo leeyahay asxaaboo leeyahay waad u imaanaysaa war qofkiina naar buu ku socdaa wax fiican ma samaynayo ummadda xumaan buu u gudbinayaa ummaddaha laga qabto wanaagiis baan jeclahay jannaan la rabaa ehelkeed u gudbinaysaa wax celiyo amaba wax ishta haddii aad weyso qodob saddexaada ku furan oo ah in aad babliga dhex keentaa dhahdo ummadoo ilaahayow ninkan daawada xumaanuu samaynaa saanuu yeelaa kan uu yeelaa saddexda mid ka mid ah ma aadan samaynin aniga qof la weyn kara ma ihi qof bulshada dhexdooda magac kule baan ahay haddiiba aan xumaan sameeyey meel aad igala soo xiriirta ma weynaysid comment ay ii soo qori kartid lambarkayga youtube-ka saaran waa iga soo wici kartay meelaha aan u badanayo qof kastaa yaqaana waad dhihi kartay baabajaali ii geeyo asxaabaan leeyahay waad la soo hadli kartay intaba ma aadan samaynin go'aankaaga kaga aadan inaad adiga qofka u xugmin karto sida ilaahay inaad tahay oo kale kaga hadashay runtii baabujey asagana uu ka hadlay arrintii wuxuuna sheegay sida aad dhegaysateen sheekana uu hadlay horta waxaan rabaa hal arrin inaan dhaho hal arrin baabajeyna waan leeyahay sheekana waan leeyahay sheeka waxaa kaluu sheegay qofkii hal soo qabto hal camaloo wanaagsan uu sameeyey baabajey $1 aan siinayaa horta arrintaas waxaan ka leeyahay baabajey waxaan haynaa intaasoo camaloo wanaagsan uu sameeyey daraad mar dhow maalmo hore waa asagii tagaayay gabar maamo Soomaaliyeed 7 caruur haysato ilaa kuwa labadooda maxaa la jiray odaygeedina ka dhintay waa ninkii wax u geynay baabajey hadii wanaaga loo yaqaan maxaa la jiray sadaqada horta sheekha waxaan leeyahay sheekha arrintan uu sameeyey waxa hoogaa oo qurxanay in ilaahay kuma darnaade uu sida uu sheegay baabajey contactigiisa raadiyo diinta sideeda waa nasteexo waa xigmad waayo maxaa la jiray markaa rabo inaad diinta u sheego waa xigmad iyo daaci waayo iyo ilaahay kuma darnaade inaad isugu sheegtid marka waxaa laga rabay in oo maxaa la jiray wadaadka oo ninkan si private ah waxa uu sheego uu ilaahay kuma darnaade cilmiga ninkan wixii ka qaldan uu si walaaltinimo ugu gudbiyay intuusan keenin baraha media oo Soomaali Maxamed oo 20 milyan uu ogeysiinin horta taasaa u fiicnayd wadaadka qeyr Allah siiyo mar walbana anaga culimada Soomaalida waa ka dambeynaa madaxinoo saaran yihiin laakiin culimadu waa bini'aadan naftirkooda marka intaasaan ku leeyahay wadaadka in waxaa wanaagsanayd wixii yacni yara xigmadayo ilaahay kuma darnaadee oo dee basal la taagana meesha ka bixiyo baabajey ay soo haray marka baabajey culimada Soomaalidu waa dhaxalkeena wadaadka Soomaalida wuxuu ku sheegay ku dhahay sameys oo anaga aan wada aragnana waa kugu raacaynaa wuu ku saxan yahay in xaaskaada aad maxaa la jiray dadka dhexdooda aad ku shumisid waa ku qaldan tahay in ilaa kuma darnaaday gabar kale aad safar la gashay waa ku qaldan tahay waxaasoo dhan oo uu sheegay sheekhu wuu saxan yahay marka anaga haddii aan joogno social media wixii xaqiiqda ah ee dhabta ah yaan ka hadlaynaa marka intaas waa fikirkayga opinionkayga adna kaada bal fikirkaada waxaa la jiray commentiga nagula wadaag haddii aadan weli subscribe garaynina subscribe noo saar like tana dee noo saar share kana noo wada wixii inta ilaahay kuma darnaade bini'aadan aan nahay ma dhamaystirin maalinba dembiyaan ku jirnaa 4 saac dembiyaan ku jirnaa ilaahay noo dambi dhaafo shacbaana lagu jiraa dembigeena ilaahay jalla wacala ha noo dhaafo ilaahay ha noo naxariisto ilaahay hana soo hanuuniyo qof walba maqfirad ku jirana ilaahay jalla wacala ha soo hanuuniyo laakiin diintu waxay ku fiican tahay oo ilaahay kuma darnaade nebi maxamed alayhi salaam asxaabiisii si xigmadaysan caqliyaysan oo ilaahay kuma darnaade naxariis ku jirto inaan isugu gudbino aan wax isugu sheegno ma ahan inaan isku canaan